This is the place we live. This is the place I live. Halkaan deganahay annaga vacationka ku joognaa. Boolka waa kana. Insha Allah. Saakaan ka tagaynaa haddii Alla idmo. Meeshaasaan ku nasanay. Aan Ilaahay ku naqaanay. Quruxda badan. idinkana waa idinkula talin lahaa inaad timaadaan boolka ilaa all the way down baan idin tusayaa insha Allah. saas uu qurux badan yahay guriga. meeshaan waa korkii kore waa lagu nastaa. waa meel aad u qurux badan saana u eg tahay. beautiful. halkaan waa ku nasanaa, waa lagu nastaa. dhinaca kale guriga waa kan saana u eg yahay. boolka haddaan dhinaca kale idinka sawiro meesha aan deganahay ama magaalada Wataamo gurigaan ka joogno waa gurigaan saana u eg yahay neebarkiisa. dad aad meel aad u qurux badan oo aad loogu raaxaysto weeyaan. maskaxda u roon, qalbiga u fiican. marka waxaa idinkula talin lahaa geedkan waa taqaanaan, geedkii yaraantaydii la igu kufsaday anoo yar. waa geedkan meel kasta waa ku yaallaa magaalada. meel kasta magaaladan waa magaalo taariikh leh, qadiimi ah. marka meel laga tegi karo ma aha, laakiin dantaa ku sheegaysa, dantaa kaa kaxaynaysa. bas waxaa loo imaaday vacation. jacayl iyo joogtaan badan ma jirto, meelaad leedahayna ma aha. marka sidaas ogaada. shaqaalahaasaa ka shaqeeya guriga, wiilal iyo gabdhaba leh. innaba caadi ma aha, meel lagu noolaan karo weeyaan. idinkana waxaa idinkula talin lahaa in aad inaad ka faa'iidaysataan oo aad ku noolaataan meeshaas iyo meel lamid ah vacation u imaataan. gurigaa doontid deganow, sidaa doontid u noolow, laakiin ogaada inay safarka iyo vacationku maskaxda bini'aadanka wax weyn ka bedelaan. sidaasaan idinku soo duubayaa inaan wax walba guriguhu baalmay ka samaysan yihiin, jiingad iyo shubmidna kama samaysna. haddana waa kana reerihii caddaan ahaa halkaanay ku raaxaystaan. gurigaas quruxda badan, beautifulka, niceka. stairskiisaan sii fuulayaa hadda. hoos waa kana, hoos waa la hurdaa. Hi, how are you? Good. Recording a little bit videos. Thank you. Okay. korkii koraan imid meesha u koraysa guriga waa kana maasha Allah. saas u qurux badan yahay. korka kore markaad timaadid viewga dhan kor baa ka arkaysaa, magaalada dhan kor baa ka fiirinaysaa. waxaan idiin tusayo ma ahan in aan anigu idin leeyahay laakiin waxaan tusayaa waa caruuraha yararka ah, dhalinyarada yararka ah, youthka, dhalinyarada Soomaalida especially oo aan luuqadooda ku hadlo ayaan tusayaa. markii hore guriga waa la hurdaa, sidaan doono uma hadli karo. so waa inaan ka xishootaa dadka guriga kula degan oo respect garaysaa, because dad badan oo caddaana guriga ila degan. intaan deganahay oo kale ka degan waa 4 qol, 2 anagaa degan, 2 dadkaasaa degan. marka beautiful place kaasaan jooga asxaabey. meel Ilaahay lagu sugo ah, meel qurux badan ah. waddankeena waxaani wax ka qurux badan baan ka samayn karnaa. waa meel qurux badan dalkeena. wax walbaan ka samayn karnaa, wax walba baynu ka samaysan karnaa. meeshii downstairs-ka deer aan idiin soo duubayay waa tan. boolka halkaas ka muuqda maasha Allah. marka intaasaan rabaa inaan idinka tago asxaabay. meel kastaad joogtaan, quruxdaas iyo liftaas iyo nasashadaas iyo meel walba moota ordaysa, tugtug baa ordaysa, taxi baa ordaya, wax kastaad helaysaa. laakiin yaan lagu dhicin, meeshaan baalaha lagaa rifayaa. waa inaad more careful noqotaa, more careful waa inaad noqotaa. haddaadan more careful noqonin baalaha lagaa rifayaa. so markaad always safraysaan, tan kaliyaba maaha, waa meel kastoo loo safro waa inaad always noqotaan. halkan waa lagu qadeeyaa, waa lagu quraacdaa. marka talaagada halkaan u taallaa. waxaan idin leeyahay noloshu ha idiin wacnaato. asalaamu calaykum
waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatuh.